bulshada ka soo jeeda deegaanada Qorolugud Coodan la iyo Wadaamago oo kulan ballaaran ku qabtay hotel Tawakal ee magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xukun maxkamadda gobolka Togdheer ay ku riday 23 bishan laba nin oo walaala oo ka soo jeeda deegaanka Qorolugud waxaanay ugu baaqeen maxkamadda sare ee Somaliland inay dib u eegis ku samayso xukunkaasi lana soo qabto shakhsiyaadka lala xiriirinayo bilowga dilal hore uga dhacay deegaanada Qorolugud iyo Buuhoodle waxaana goobta ka hadlay cuqaal haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Qorolugud waxaana hadaladoodii kamid ahaa mujtamacii baanu nahay ka soo jeeday Wadaamago iyo Qorolugud iyo Coodanle waxaanu ka xunahay oo ay ummadani halkan ugu soo baxday dilka lagu qaaday labada nin beesha Qorolugud ka soo jeeda dilkaas waa noo dhaxayn dadka lagu eedeynayo oo reer Buuhoodla oo waliga xoolo kala qaadanayna isna dilaynay gacantii dambena annaga nagu tiilay kuwaan xeer iyo xaal midna laga marin maqan yihiin arinta waxaanu doonaynaa in laga fiirsado raalli kama nihin sudanay deegaanka Qorolugud iyo Wadaamago ka xunahay dilkaas oo mar walba dhaco anaga kuwa iyaga aan alaanka waxa dilka ka horeeyay 7 dilo hore ka horeeyay midna waxba looma soo qaban sidii bay ku maqan yihiin xeer iyo xabtoona lama hayo hadlaynaana waxa weeye dawladdu xukun xulida anaga hadaan nahay deegaanka Wadaamago iyo Qorolugud anaga dilka madiidba islaamka waa loo soo rogay laakiin cadaalad darrada ayaanu diidaynaa ku qaaday deegaanka Qorolugud iyo Wadaamago ka soo jeeda waxaanu ka xunahay cadaalad darrada nalagula kacayo laba wiil oo walaalo ah ayaa dil lagu xukumay oo maxkamadda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay xukunka noo eegto magacaygu Xamdan Salamaan Jaamac waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka soo jeeda deegaamada Qorolugud iyo Coodanle iyo Wadaamago dilka lagu xukumay labada nin ee walaalaha ee mid saddexaadna ka horeeyay waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland inuu arintaas si degdeg ah wax uga qabto kama xulin xukunka oo ay waa sharci qofka islaamka qof dilay loo soo dilo laakiin kuwii dilay qasaaskii hore iyo dilkii hore ka horeeyay ha loo keeno ha loo dilo sharciga islaamka la hor keeno si cadaalad ah lagu maamulo beesha Wadaamago Coodanle Qorolugud inta anagu ah waxaanu ka cabanaynaa xukunka lagu qaaday labada nin ee walaalaha ah taasoo aan tirsan cadaalad xumo dadana halka maanta ku qabanay dadkan aan halkan isugu nimi dhammaan waxaanu halkan maanta aan ku muujinaynaa dareenkayaga aanu kaga xunahay inamadeeda halkan lagu soo xukumay Ali Daahir Maxamed Boos TV caalamiga Universal Bro